السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantana waxaan ka hadlaynaa maxaa ila gudboon haddii dhakhtarka uu ilmahayga ku sheego inuu leeyahay autism ama la nool yahay autism ama ilmaha markii lagu sheego autistic inay yihiin saan soo sheegayba waxa weeyaan waa umbrella, waa spectrum, qof walba meel ayuu ka taagan yahay. waxaa laga yaabaa ciyaalka qaarkood inay maxaan ku rahdaye ay hadlayaan oo maxaan ku rahdaa waxbarashada ku fiican yihiin, laakiin weli ay dad habla dhaqanka dadka iyo dadka dhexgelitaankooda iyo waxaas inuu ku adag yahay. waxaa laga yaabaa inay sensory issue qabaan. sensory issue waxa weeyaan inuu qaylada iyo buuqa iyo sawaxanka inay qaarkood dhibayaan, qaarkood iftiinka faraha badan oo dhibayo, qaarkood cuntooyinka qaarkood aysan cuni karin. kaasna maalin kale aan ka hadli doonaa, laakiin maanta programkan wuxuu ku saabsan yahay haddii aan ahay hooyo ama aabbo ilmo yar haysto oo dhakhtarka igu yiraahdo ilmahaaga wuxuu leeyahay calaamadihii autistiga ama waxay ku diagnose gareen autism ayay ku diagnose gareen, maxaa ila gudboon inaan sameeyo? horta waxa ugu horeeyo waxay tahay waxaad ogaataa daqiiqad ka hor intuusan dhakhtarka kuu sheegin cunugaaga autistic inuu yahay sida uu ahaa waxba iskama bedelin. still waa cunugaagii, wax iska bedela ma laha, laakiin maxaa isbedelay? annaga waalid ahaan ayaa waxaana loo sheegay information oo lagu yiraahdo ilmahaaga waa autistic, nolosha inta ka dhiman wuu la noolaan doonaa. marka annaga isbedelna waalid ahaan, maskaxdeena isbedeshay, emotionkeena isbedelay, laakiin ilmaheenni daqiiqad ka hor ilmihii ay ahaayeen ayay yihiin. waalidka maxaa la gudboon? waxaa la gudboon take a minute, qaado waqti yar. waxaad ogaataa ilmahaaga inuu ilmahaaga yahay, wax iska bedel haba yaraatee aysan jirin. ha u arkin inuu yahay qof aan nolosha waxba samaysan karin, ha u arkin inuu yahay qof aan macnaha culays inuu kugu yahay, ha u arkin inuu qof dhiban yahay, ha u arkin waxaasoo dhan. laakiin waxaa kula gudboon in aad u raadisid caawinaad sida ugu dhaqsaha badan leh oo caawinaadii ku habbooneed. qaasatan dadkeenan qurbaha jooga, Mareykanka, Canada, Yurub, dadkeena meelahan jooga waxaa noo sahlan inaan helno dad nagu caawiya ilmaheena sidii aan u caawin lahayn, oo ilmaheena la shaqeeyo, anagana la shaqeeyo, anagana tababara. waxaad ogaataa ilmaha aniga aan dhalay oo autistiga ah waxa u shaqeeyo inuu kaaga u shaqeyn ayaa laga yaabaa. for example waxaa laga yaabaa inaan dadka qaarkood ay ku yiraahdaan ilmaha waxaa la geeyaa fardafuul, oo markay fardaha la geeyo oo ilmaha animaalka ay soo arkaan ama faraskii ay soo raacaan, qaarkood wuxuu ka dhigaa wuu dejiyaa calm ayuu ka dhigaa. stimmingkan waxaa laleeyahay oo kaleeto ilmihii maxaan ku dhaha movementiga oo ku-celceliska faraha badan ay sameyn ayaa ka yaraado, qaarkood hadalkii u furmo. macnaheeda maaha cunug kasta autistiga ayuu u shaqeeyaa. waxaa laga yaabaa ilmaha qaarkood inuu fardaha u shaqeeyaan markii fardaha loo geeyo waxaas iyo ay deganaansho ka qaadaan oo macnaha maqalkooda uu furmo. laakiin kaaga maybe oo swimming uu baahan yahay oo fardaha uusan u shaqeynin. marka waxa ugu wanaagsan oo waalid ahaan aad samayn karto waxay tahay horta ilmahaaga inaad baratid maxaa u shaqeeyo, muxuu markaa u samaysid uu aad u baran karaa, maxaa aad uga adag, horta muxuu jecel yahay iyo maxaa u shaqeeyo. 2 in aad la raadisid early intervention oo ah dad badan, group professional people ah oo isku tegay oo ku tusayo cunug ilmahaagana ka caawinayo sidii nolosha ay meel uga gaari lahaayeen. early interventionka haddaan soo qaadano qaybta speechka, ilmaha marka qaarkood hadda anaga nahay hooyooyin ama abooyin waxaa laga yaabaa ilmihii inaad ku tiraad magacaa uu kaa daba yiraahdo magacaa oo aan iska dhaadhicino inuu ilmihii hadlayo. ilmihii ma hadlayo, waxa weeyaan echoing ayay yiraahdaan, hadalka aa sheegto unbuu kugu soo celiyey, laakiin ilmahaas hadal maaha, ma hadlayo. ilmaha hadal waxaa leedahay markaad tiraahid magacaa, magaciisa kuu sheego, iska waran waa fiicana, kaas ayaa hadal ah. laakiin markaad tiraahid magacaa hadduu kaa daba yiraahdo magacaa, markaad tiraahid iska waran uu ku yiraahdo iska waran, kaas hadal ma aha, hadalkan buu kusoo celiyey. marka waa adoo qol eber ku jirtidoo hadalkiyaagii kugu soo noqonayo kaleeto. marka haddii aan soo qaadano speechka siduu ilmaha u caawiya, ilmaha speechka si kala duwan ayuu caawiyaa. haddii uusan ilmahaaga luqad oo dhan uusan lahayn oo afkiisa hadal kasoo bixin oo dhan, oo markuu rabo inuu wax kuu sheego ilmahaagii ama oynayo ama gacanta kaa qabanayo ku jiidaayo ama farta wax kugu fiiqaayo, inta badan markay la shaqeynayaan dadka speech and language therapistiga ilmaha waxay ku bilaabaan in ay sawiro ku baraan inay ilmaha soo gudbiyaan baahidooda. sawiradaas haddii aan nahay waalid Soomaaliyeed inta badan waxaan u aragnaa marka qaarkood inay ilmihiiba hadalka ku celinayaan oo aan leenahay ilmahayga dhagool ma aha, waa sawir loo baraa inuu ku hadlo ama hadal baahidiis kusoo gudbiyo, hadhow ma hadli doono. waa tool loo isticmaalayo in lagu gaaro ilmahaaga inuu afka ka hadlo
koo waxaa lagu bilaaba sawirada intuu ilmahaaga ku jiidi lahaa ama oyn lahaa ama intuu ku jiido ee ku geyn lahaa maxaan ku rahdaa jikada ee maxaan ku rahdaa 100 shay oo kala duwan fartanku kugu fiiqo marba shay qalad ah soo qaadi lahaa ilmihiina oo frustration ka qaadi lahaa uu sii oyn lahaa sawirka markii la baro ilmahaaga sawirka markuu ku keeno hadduu rabo kaleeto caano rabo in ilmahaaga inaad siisid soo sawirka wuxuu ku keenay caana automatically waad fahansantaa adiguna waa fahantay waad qaanaa sawirkii ku yaalo caanaana ku qoran sawirkaasoo kale markuu ku keeno waxay yareynaysaa cunugaaga frustrationkii dan waxay isku bedelaysaa halkii sawir wuxuu isku bedelayaa sentence inuu sameeyo ama maxaan ku dhahay hadal buuxo inuu sameeyo intii sawirada la barayana hadalkiina wuu la socdaa soo ilmihii ku celceliskaas faraha badan leh waxa uu furmay hadallada inay kasoo baxaan oo hadallada ay bartaan speechka marka sidaas oo kale uga caawiya communicationka markastana waxay kugu advice gareynayaan markay kula shaqeynayaan dadkan speech and language therapistiga ah qofka haddii aanan loo sameynin inuu u baahdo inuu kula hadlo ama inuu u baahdo inuu communication kula sameeyo ma kula sameynayo haddii ilmihii uu wax kasta uu u baahan yahay meel u gaaray ay yaalaan uu inta wuxuu soo qaadanayo ma kuu baahna adi markii inuu communication kula sameeyo asaa baxay wixii soo sameysanaya laakiin waxa meel ilmkaa ka geysid cunuga uu ku yimaado oo kula hadlo dan waxaa baraysaa sidii uu kugu sheegan lahaa baahidiisa hadday tahay sawiradaas inuu ku baraan hadday tahay ilmaha qaarkood sign language u shaqeyso maxaan ku rahdaa ilmaha qaarkoodna waxaa lagu baraa aalado laakiin stepka ugu horeeyo inta badan aniga intaan arkay oo maxaan ku rahdaa wiilkaygaba hadalladii ugu horreeyay kaga soo bixeen waxay ahayd programka la yiraahdo picture exchange communication oo ah ilmihii inay sawir kuugu soo gudbiyaan baahidooda so ilmahaaga more aan la samaysid speech and language-ka mana aan gabadha markay timaado inay saacadaas ay la samayso ama 45 daqiiqo ay la joogto waxaa laga yaabaa weekii hore ilmahaaga inuu 2 jeer arko speech and language-ka ama mar uu arko 6 week marka waalid ahaan waxaa nala gudboon intii ay gabadhaas ilmahaas la shaqeynayso inaan anagana agtooda aan joogno sidai programka u sameynaysa aan u barano intay maqantahoo dhan aan la sameyno maalin kasto haddii ilmahaaga uu yahay da-da iskuulka in speech and language-ka iskuulka jooga aweydiis ilmahaaga targetkiisa oo speechka ku saabsan iyo hadalka iyo communication ku saabsan in sida ayagana ula shaqeynayaan iskuulka adna aad guriga kula shaqeysid taas waxay fududeynaysaa markii ilmaha labada dhinac lagala shaqeeyo in uu gaaro meesha uu gaari lahaa waqti ka yar waqtigii haddii aadan guriga kala shaqeynin haddii ay dhaqaalaha kuu saamaxayaan oo aad awoodid inaad qabsatid private speech and language qabso private speech and language taas waxay yareynaysaa intuu ilmahaaga maybe 6 week ama 8 week hal mar uu arki lahaa gabadha speech and language oo program loo sameyn lahaa oo sidii la rabay aan loola shaqeyn markii aad u qabatid adiga 1-to-1 oo aad u qabatid gabadhan private-ka ama nin wuxuu doonaa waxa noqdo inta badan dumar sameey speech and language-ka inta aniga arkay oo qabatid speech and language-ka oo ay la shaqeyso adigana ay training ku siiso adigana hooshi aan maalin kasta sii wadid cunugaaga waxaa laga yaabaa communication-kiisa inaad isbedel aad ka dareentid tan kale aan rabo waalidka inaan u sheego waxay tahay waqti ha isku xirin macnaheeda waxay tahay haddii aad arki weyso cunugaaga isbedel aad ka arki weyso muddo 6 bilood ah ama muddo sanad ah ha isdhihin cunugan waxba ma baranayo ha joojin waxaa sameynaysid ilmaha walbo ilmaha kale uu ka duwan yahay maadaama cunugan ama ilmahan yar lagu sheegay autism baahi gaara inuu leeyahay markasto waxay ku qaadanaysaa waqti inuu gaaro meesha uu gaari lahaa marka waxaa laga yaabaa haddii adiga waqti aad ku xadidid oo tiraahid ilmahayga 6 bilood ay gabadha speech and language-ka imaanaysay bishiiba mara maxaan ku dhahaa bishiiba mara imaanaysay maalin kasta la shaqeynayay 6 bilood wax isbedel maan arkin oo aad ka joojisid waxaa laga yaabaa caqabad inaad ku noqoto minute-ka ilmahaaga communication-kiisa uu furmi lahaa marka waqti ha u qabanin sabar yeelo dulqaad fara badan yeelo ku celcelis fara badan ha jiro shaqada consistent ha ahaato insha Allah biidnillahi alkariim waad arkaysaa isbedelka haba yaraadee xataa isbedelka hadduu yar yahay waa isbedel waxaad iska ilaalisaa markii ugu horeysa ilmahaaga diagnoska loo sameeyo adiga dhan emotionkaaga waxaa taa all over the place qof kasta taladuu ku sii ayaa qaadanaysaa markasta waxaa ogaataa talada aniga aan ku siiyo aan ku raado ana cunugayga kaasa u shaqeeyo yes qaado ka fikir haddaad doontid barobay laakiin waxaa ogaataa cunugaaga iyo cunugayga inay markasta kala duwan yihiin waxyaabaha cunugaaga u shaqeynan u shaqeynin qofka professionalka ah hadda tusaale waxaan usoo qaatay speech and language-ka qofka professionalka speech and language-ka talada uu ku siiyo raac sababtoo ah ayaga ilmahaaga assessment ka qaaday ayaga kula shaqeynaya ayaga ilmahaaga yaqaano intii aad ka qaadan lahayd qof kale aan ilmahaaga weligood arkin aqoon intaad tala ka qaadan lahayd ka qaado qofka professionalka ah oo ilmahaaga assessmentiga uu sameeyo oo la shaqeynaya ayaga tala ka qaado wixii shaqeyn waayo kala hadal wixii ku adkaada kala hadal sida aad u sameynayso xataa tus
haddii u baahanta in wax laga bedelo ha laga bedelo, laakiin markasto dadka professionalka ah isku day in aan ka qaadano talooyinka iyo trainingka oo aanan kasoo qaadanin meel kasto. maxaan ku rahdaa markii loo sameeyo after diagnosiska dhaqaatiirta inta badan qaasatan wadankan UK diagnosis ay ku sameynayaan, warqad ay ku siinayaan, laakiin wax referral ay ku sameynayaan ma laha. taas waxay keenaysaa adoo aqoonin xaaladda cunugaaga, laga yaabay autism inaad maqashid laakiin garanayn meel aad u martid, dan maxaan sameeyaa? waxaa kula gudboon dhakhtarkaaga inaad ku noqotid oo tiraahdo referral iigu samee special language therapist. haddii aad aragtid ilmahaaga in uu maxaan ku rahdaye sensory issue qabo oo dhagihiisa gacmaha uu saaranayo oo buuqo kala dhibaayo, haddii aad aragtid maxaan ku rahdaa nalkoo kale iftiinka inuu nalka damina ama iftiinka uu dhibaayo, haddii aad aragtid cuntooyinka wax yar maxaan waxyaabo kale inuu cunaynin, dharka inuu iska siiba, waxaa laga yaabaa sensory issue fara badan inuu haysto ilmahaaga. markaasoo kale waxaa caawin karto occupational therapy oo loo soo gaabiyo OT. marka early intervention waa muhiim, ama ha noqoto qaybta hadalka iyo communicationka, ama ha noqoto qaybaha kaleeto ee ku saabsan ilmaha. waxaa kaloo muhiim ah ilmahaaga guriga intuu joogo, marka qaarkood hooyooyinaan nahay, marka ilmaha lagu soo sheego xaaladaha qaarkood waxaana galaysa naxariistina galaysay, naxariistaas ayaa laga yaabaa marka qaarkood ilmaheena inay ku noqoto caqabad. yes u naxariis ilmahaaga, haa baahi gaar uu leeyahay, laakiin ilmahaaga kaleeto waxba kama doona. so ilmahaaga kale sida ula dhaqmaysid ula dhaqan. social skillska ilmaha kale u sameynaysa u samee. tan arinta social skillskana maalin kaleetaan ka hadli doona ayadan insha allah biidnillahi alkariim. laakiin waxaa ogaataa ilmahaaga hadduusan hadlaynin wuu ku maqlayaa, wuuna ku fahmayaa. so markasta waxaa ula dhaqantaa sida ilmahaaga kaleeta ula dhaqmaysid, waxba kama doona. hadalka duu ku xiran yahay, ama haddii xaaladda autism lagu soo sheegay, ama haddii xaalad kale lagu soo sheegay, baahi gaar uu leeyahay, macnaheeda ma aha waxna ma maqlo waxna ma fahmo maaha macnaheeda. marka insha allah biidnillahi alkariim aan isku dayno markasta inaan ula dhaqano ilmaheena sida ilmaheena kale ula dhaqano. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.